السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسر هذا برنامج كنبك هذا الوباهين الدولة كونفور قلبات على واحد ليدنا كله وإذا كجسوا مقنع يشاشد دولة كونفور قلبات الصومالية أنك مقل كيسن وياي هذه برنامج كسيد عادة هد وحاسة توسع إذا السعوديين دونا هدي الله أود إلى لقاه له أنا جوا محمد يخسر جته تطبعات كانوا وكدومية تطبعات دي هره وحن ديردان كسر دونا الرمى فربضان وبلشدان لأنه إني يهين واحتر baahi weyn ay u qabaan si ay aan kaga xaqabtirno toddobaadkan barnaamijku waxa waqti marti igu ah xeer ilaaliyaha gobolka Bay Mukhtaar oo ah nin aqoon-yahan daayira isla markaana ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed wax badan aad wada taqaanaan markuu ugu horeyso mudane soo dhawow kuna soo dhawow warbaahinta dawladda koonfur galbeed anigoo wakiilka ah warbaahintan waxaan kaaga mahadcelinayaa waqtiga quruxda badan ee adiga noo hurtay dunida waxyaabaha ugu qiimaha badan oo qofku uusan helin waa waqtiga welcome بسم الله الرحمن الرحيم وليا سيرجيت إيدا ومحد سنتا سادا مغايا كشاك ديو مغايا ميبا لري مختار عبد القادر حسين ميبا أنا حير عليها قبل كباي ميبا دوا كدوا تلفزيون كدولة قولات وكون فرق البادير هذه ما سنتا مركوة دي مرلمات ميبا وصاد هني حسوستي كما سنتا وات أديله ما سنتا بل ولي وحن سيجود قالنا قبي هراء برنامج كقطب كان كسر قاعدين دونا وحياه وما هي حير bulshada inta badan way isku qalada waxa jira xeerar qoran iyo xeerar aan qornayn oo bulshada soo jireen waa caadi dhaqan oo inta badan ay isticmaalaan si aan maanta aan ugu jahjahno bulshadana waxyaabaha tashwiishku ugu jiro aan uga saarno ayaan barnaamijka maanta aan u aragnay Mukhtaar inuu yahay shakhsiga kaliya naga qancin kara si aan anagana aan u gudano waajibaadka bulshada naga saarna mudane markuu ku horeyso magaca xeer markii la fiiriyo sidiisaba muxuu yahay adigoo noo soo koobo بسم الله الرحمن الرحيم حير هرت ميل رايا مرك حير ليرا ولد دكس ديمو حير ميلك جيد فور اكزامبل حتى حير مركل اللي دستورك اي حير دالكلك دغو وجر انت حيرك سيدد كهندير نكو هرما اسك دغايا انا حير يو دكس دين ونا ددك marka una dad oo muslimiin diinta islaamka le maylana xeer lana xeer kanona kitaabka ilaahay hadajiyo maybwa kitaab quraanku ما يبغى إلهي ميربمك كتبنا إن لسك معموله كتاب كدتيس مدلنا ما يجرتي شروع دت كدك سدايم وأسك دقايم والدينتنا انخلافنا for example حير حتى ما يدك سنة لإراو حيرك إقامة الصوماليات حيرك هبك إقامة حيرك مدنية حيرك نظامك جرسورك الدستورك حير فر بدن يجر سببته حيرك ما يحشل حكمية ومته حير ما يبوا ولدت كدك سدايم وان اسك دغايان وان لا تطبيق يوسي لن تطبيق يونن كهور كوي والشرعيغا سي كهور كويسن لك اقابو هديوس ان سميننا قف فرعي سي حير انت حسلك جيد حيرك markaad fiiriso bulshada dhaxdeeda door aynkeega ku dhaxleeyo والله inuu deegaanadu una degna marka la fiiriyo dadka keekeen xeerka hanuu ma fahansan wadamadan kala markaad hormaray ada seeta ma aragaase nanka دستورك دل شيء اندكسني إيوني حير إقاباتك دل شيء اندكسني بردي وغرك فانسني ها ونه هتدل كي كان دتك الشريعة هذا بردو يا ما معقول إيه إن يو حتى انفهم سنين حيرك مررك غار سببتو إيه ما يرجعسه نعكو فيري بلشيد رتيه والممنوع كأي وجر بلشيد رتيه السنين كذا ما كورنا جرت dadka mararka qaar ma eragaas oo xataa markii uu xafiisku xeer ilaalinta uu kooyani dada ma in iraayna markii la weero warqad jeerid la ndiro kooy xafiiska xeer ilaalinta leen inta ka yaaliya ka iraayeen waa xafiiskeedan oo magaalada ku yaalay oo la kasaay oo cadaaladii qayb kumid ah oo nankii dambe sameey eedisa oogay oo xubintiinka ma aqoonsanaaytay ma tantani qasabtay in uu sameeyna wacyigelin oo in uu sameeyay in sheegada mobile code wala mas maxkamado wareegan oo seedayan in sheegada kaanamka daafa magaalada dadka la ku tabarada doorani macnaha ma aragaaseena in fahansinayna xeerka mas xeer ilaalin ma tasdiid yaabnan dhibana ya mar walba la jarta dhibanaga markaan kinglijeeda ma ta qof kufsi ka dhig waqtigii hore oo intuu aan kooyna ma idii jartay qof dhibaato ka dheeday oo xeer Soomaali mas xeer hoosaad sadan ka saarsan dadkan mayl degay xeer hoosaadku mas xeer oo
in sheeg ada هذه دقيقة ha dhaqanka eh nanga meeragaas qof gabar ah ya kufsi ka dhiyay meel may kwaayas xuquuqdii bikridii walaa dhanka waayaas may dhiyaaseen in la oday inas fadheedano isran arniyo gabartu may ka dhiyay hanga ka dhiyay ma hernin hay dubugo sida masan wal noocaas ee lis eray qofki dib ka deeri namaysiyaan odayaashii ayaga ku kala baxay waa sharci ayaga sameystay wal yo sameysay hay una markuuna koyni may tadbiiqinay mas qur'aan aanay mas dabaqnay heerkii dalka antaale diinta islaamka oo nan kun horta may sameey kufsi ma sameeyne kufsigaas uu sameeyay qodobka 398 heerka iqaabta Soomaaliyeed dhike wuxuu ka qabo in kullu ku qaada may sameeyane xuquuq iyo nay may ka xukumaana meel uu ka saraytum ishan sano meel in hoosaytuna shan sano habse aha intina ka xukumaana yartina xaqiya lahayti yaan ku qaadana awshana ma ku wareejiyaan adeershana ma ku wareejiyaan yalla siye walaagi xaqin lahaytina sababtoo xeer hoosaadkii dadka eedan la dagay bulshada may mar kasta una hatta mar kasta ma yaraan si telefishinka aad ku warqabta bal bulshada hay baahiyoy cadaalad iyo walaay qobadaas si ummato aan ogaat meel xaq shajar iyo meel xaq daradiya jarta idan ma hasantaa markii qof lagu dhaqaayo wuxuu san garanaynin soo dhibaato inta leeg aad ka dhaxmareysaan naftirkeeda u baahan inaad fahansiisaan intaadan ku dhaqin ama aad ku garta ugu qaadin waxa uu xaq u leeyahay niyo hadda waa horta dhibaatooyinka meeliya laga may ku mid ah sarjita mararka qaar ma aragaase nanka wala us fahansinayn ma ka qaado korta macnaha ma ka qaado korta marka ana ka lahaa in intaada ku dhaadhiciida ayaa waqti u baahan ya waqti macnaha marka ana saas ka lahaa ma taa nanganan dhaawac aan jeyside dhaawac wala ka dhaawac ulu sadeere nankii booliska qobade booliska xir ilaalinta aan sheene wal gudbiye xabsiga landare marka xabsiga landara xafiiska xir ilaalinta may waajib eleeyaa in uu saxaanshada eed qor oo hebel may bagalay eedun falkun galay ma xadarkaasay ma xadar furun oo ma la ka qaado in sheegada maxkamadda nanki helidiisa fadheedeen dhiban nanki dhibkala deersi helidiisa fadheedeen marka kiiskii lan fadheedo dhugunsida adamayta xeer ilaaliyada eedi oo sanan ku mayla tawlaan falkun u si sameey adoon hayta cadayma ka filin isugi bilay ani weele helidii nan kama aaminsan sharciga macna ma fahansan may leeyina nan kay may haysadee mukhtaar maxkamadda nan kay haysata dhibaatada meela taalo ku mid ah bal hadii xeer la waayo waxa ku dhici kara isla bulshada wallahi umad walba meelka nool hadii xeer lan waayo wal qaanun qabaad dheero ka dhigan oo nabnanka isku hoog wiinyi in uu hoolashay hoog in uu sidile in uu dhibaatay idba ku hoog wiintilay ka tumata ya kooyas wala la ka shal wareegada arag hay'ad sharciga nan kasta may leeyaa sharciga markii la kilay sharciga tiirida leey tiirirkaas waxa ku bilaawdo booliis for example farka nan ka markuu falka jeey laamo amniga qobadaaya qaybi kala duwanaa hadii uu kiishay oo fududii saldhiga qobade hadii uu saado saldhig isku wareejay may jeeyay laanta baaris dambiyada CID oo gobol ha baare walaa isu ka aragay isuuna qora xeer ilaalin aan sheena xeer ilaalin xabsiga landare nan kaasayti markuu mayla tusahay walaa isu xabsiga linjeeyahay wal adaadiyayno hadii laakiin nan kilin hirna lan xukunna dilinka xukunna habsi daa'im lan ka xukunna mayna gadaasay wadanka nabnanka koogin musifadon la dhagama qof xaqiisa qofka kale uu galay badan dadkina uu madan bal maadaama dhibaatadaas uu muuqto ay jirto waad marqaati ka tahay habeen maalin aad u taagan tahay bal wacyigelin ma sameeysan si dadka loogu daadajiyo loo fahansiiyo waxa qofka xaq u leeyahay isan wuxuusan xaq u lahayn iyo hadii dambi uu galo waxa mutaysan karo sarjito idan ma hadsan su'aal faylo xafiiska xeer ilaalinta marka la riyo unit oo meeyleeyaa an qaabilsan wacyigelinta oo bahow oo baaburtiyo qaadadayaan oo kaamamka seedayaan for example kaamamka may ka dhiyaya dambiye kala duwan aad u badan dadka ma aaminsan in uu saldhigi kooyo kora maxkamadii kooyo kora maadaama uu yahay qof mo tabar yaro masaakin
ma ognan usan xiliya macnaha oo sharciga ba an qobaday xeer ilaaliye leerow sharciga ba may boo dhikaw in usu dhibana metela oo nan kale ku tabar darinyi macnaha nan ko may jara boos ee jara nan ko may jara in sheegada oo in sheegada isku nugul dhibaatooyinka nugul ma aaminsin markuu in usulan doodo kora haqshayna helo kora ma aaminsin may sameeyana markuu unida jara oo wacyigelintaas ay sameeyo oo isbuuc walba kaamamka magaalada seedaw oo in sheego cadaalad oo leeyahay war maxkamadii una nankii isin wal siin jeysada nambaradu hanoo waca nankii isin wal siin dhibaatay booliska hal xariira booliska hal xariira masaxir ilaalinta hal xariira unii booliska la sii xariirana si lan hela xaqin hatana mardhow may iska dayahayna in una sameeyna boorarku mid boorarka in una boorar magaalada ka dhagsan in una cadaalad iyo ay intii limid ah una haka hardana oo una haka sameeyna oo una ka gudbiyna meela fariimo waas una ku gudbiyna si una hordhaan bakin sheegnay mayniin qorshaysana in una la fadhayna telefishinka dawlad goboleedka koonfur galbeed isbuuciyada macnaha maalmo si wacyigelin bulshada lan sii ogeysiin linku bi oo cadaalad walaayata iyo inay qofka meel u sahan maro kor is fududa us an helo kor intaasay tiyaamay boo sameeyay doon insha Allah maadaama aad sameeysan wacyigelintaasi maxaa idin dhaqan galay hadda isleedahay bulshada ma tahay sidii hore mise isbedel kale too muuqda jira hadii la sii wadana wax badan meesha ka bedeli kara ida ma hasanta sababtoo horta walaal wacyigelin lan sameeyo ma taa in wal isbedelan hatta may ba aragnay isbedel badan oo ka dhii bulshada oo qofka may barnay horta xeer ilaalin in us shaqeeyas in us hadii us dhibla deersay is matalaas hatta boqolkiiba 80 bulshadii cabadahayan hitaa may dhiyaasee nan afka ku goondiye in us warqad haq orada oo us xafiiska sheendada oo leeynan kaasa dhibkaasay inka goondi may wadibkaasa ii sameey may fadaya in diiwaanka dambiyada leeyinka qora nankaasaytii haddii aan wal ideerona la kala xisaabtama haddii aan wal ideernana waa kay ku bacadna waa bakiisoo la dhugunsido ka kalen isuuna langweero leer warnan kuma in kiin jibtay adina markii kiin hinjibay ay kiil roogi marqaatiyaal oo ada kiin caday in una hatamay bool badan ya isbedelay wata ma santahay daawadayaal wali waxaan ku guda jirnaa qaybihii dhexe ee barnaamijka dhabka hadal ee warbaahinta dawladda koonfur galbeed tabantiisana uu leeyahay maxamed Deeq Jito muqtar haddii maxkamadda naftirkeeda ay samayso dembi xagee loogu dacwoodaa oo bulshada xagee ugu hagaagtaa waayo bulshadu waxay aaminsan yihiin awoodda ugu sareysa dalka marka la fiiriyo xeerarka inay maxkamadda ay tahay dembi markay gashaan ee siday doonto ay samayso ama dadka dhaqaalaha haysta naftirkooda ay si gaar ah u isticmaalaan si barbalonida ama dhibaatada ay geysteen uga xaliyaan marka maxkamaddu markay qalad uu ka dhaco xagee loogu dacwoodaa maxaase dadka la gudbo markaas su'aal muhiim ah oo bulshadana aaminsantay in wallan ku sheegona muhiim ah horta madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen dawlad goboleedka koonfur galbeed garsoorku markuu isu magacaabay 2009 haytii dabiyaaqadii bil 925 meelahaas uu markuu magacaabay darajooyinka leeyahay maxkamado iyo xeerar darajooyinka may buwam darajada koobaad darajada lamaad iyo darajada saddexaad darajada koobaad dhan walaayo khaladan maylu ku dacwooday darajada lamaad oo maxkamad racfaan mayleeyaa garsoor hebel masxir ilaali garsoor hebel ama ii sameeyay dhibkan ii sameey afnima ee wili qoraal ee talasheenay sababtoo ay meelkiin ku cadaada in garsooraha horta walba aan qalad korna masxir ilaaliha racfaanga jar horta sideetiyada racfaanga say meelkiin sheegay walaay darajada koobaad qalad inta in la ka sax karo darajada lamaad walaay qaladona darajada saddexaad oo maxkamadda sare in la ka sax karo may jartay markuu garsooraha hadii uu socodlada ku qaba maxkamadda racfaanka warqad lan qorada may leeyahay garsooruhu sideetay bikiiskay ma qobado kor cadaaladna ma ku deero karo in la oo bedela durin baleeray durin sharciyadeedu jara gadoomiyaha maxkamadda racfaanka may ka amaray gadoomiyaha maxkamadda gobolka mise gadoomiyaha maxkamadda degmada in garsooraha kiiskaas lagu bedelo garsooro kalena lan dhiib si cadaalad lan helo may dhiyaasee hadii xeer ilaaliyaha mar walba horta may durinka xaq ay inuu sameeyo dhibanaga macnaha dhibanaha xeer ilaaliyaha matale ilaan
eedaysan i heer ilaali lida iska yin sidiitiyooba mayle falkanan ka jeeyay sidii dambiilu dhibkun wala ogdaa wanaag badan oo dhatiyo hanuun jar male laakiin nankun ee in sheegada dhibanaha haddii uusan arag in uusan kiishay in wada korna xeer ilaalihu xafiiska xeer ilaaliha guud dowlad goboleedka koonfur galbeed yaa warqadan qorada mayle xeer ilaaligaas kiiskay awood maglay in uswada cadaaladna may ku deero kor may faday in loo bedel xeer ilaaliha guudna may xaqin layaa in uusan kiiskaas bedela oo xeer ilaali kale ka qora bilaa shuruud laha in eedaysanaagaas sayti dhibanigaasay si u xaqshay an hela waa tahay bal inta badan waxaa dhacda kiisaska markii maxkamadaha loo soo wareejiyo noocyadooda kala duwan inay daahaan bulshadana waa taqaanaa Soomaaliya hataana wax daaho inta badan ma jeclin kiiska qofka maanta la qabto bari la soo diyo ama maanta inuu san dhaafin jecel bal arintaasna maxkamadaha maxaa kaga yaal maadaama lagu soo eedeynayo horta kiis dambiyada shalayeen maxkamadona shalayeen maxkamad degma tum ishan maalamood iyo eedaysanaga haayo korto intaas awoodan lata tum ishantaas marka dhamaata mase shan maalamood dhimanta for example kiiski horta wala la baaral wala la deeri la fadaw cadaaladaasna maylika deeray bini aadamka eta in aad sameeyta baaris badan taxliil badan aad sameeyta oo waqti badan aad galiida laamo booliiska gungaara la ku sugay for example geeka may sheenayna taariikhda 17 abriil eta horgeena sheenaya shan maalmood ku dibna gungaarkii ka sheenay muslimaalamood ku dib mararka qaarna ku badadaya marqaatigi kiiska ka qoranaayba mayba marka qaar koygee ko badarta may kaleeniyo oo geeka dani haysata mashquul ah ha mas magaalada bug baxasana kale waqti hibalaya kooy may danta kiiga sabaas in kiiskas adahtan codsi aad qorata waxay ilaalinta codsi qorto maxkamadda in qorta erta tumishan maalmood kala hayeen ka daroon wana sharciyo maxkamadda gobolka amal afarti ishan maalmood hatana kiisaskiya shalay hadii dhaawacay wal fudud afarti ishan maalmood yanan ka macnaha maxkamadiis irumaan shayba ku dhamaade hadii dil ayina sagaalin asho saddex bilood markuu saddex bilood may la ka faday in aad baarisisna dhamayta disna dhamayta maxkamadiina dhugunsuta xukunna la ku saar madina mararka qaar xaalada jaran degmooyinka ama la dil ka dhiya saad ku warqabta dawladda goboleedka koonfur galbeed macnaha hatta for example hadii meel bardal amal dil ka dhiya bardal dhugunsudu koran may dhugunsudu kora macnaha may ka dhugunsudu kora bardal gobol gale wal wareejiye bay dhawle sheeni may danta kiiga sabaas xeer ilaalihi booliiski in yo bahan bardal seeda baaris sameeyaan ilaan kiisku may la faday leera nanku markii uswala dilay in lan ka kan ee kor garsooraha in nanku wala dilin nanku ay oo markii wala dhiyaayan hibil roogeen falkan nooc wandi hadii laakiin may bo meeli insana may nagadaas in aad waqti kala galiida in aad bad in aad waqti badan qaadad markuu xaalada jaran lay daahista sheenema kiisaska sideetiyo may sharci muddadiyo lanka tirgalay in ka dhamaadan wan hadaleeyeen waa tahay tusaale hadda sida sheegtay markuu bardaala kiis ka dhaco ama meel ka fokiisu ka dhaco dhibaatana ay tahay halkaas ilaa maxkamad ka jirin bal kiiskaas sidee lagu qaadi karaa dhinaca maqalka ma lagu qaadi karaa oo xeerkii ma lagu gooyn karaa mise laazim in qofkii loo tago ama la keeno gartaasi markaas sida qofka xeerkii loogu soo hadawaaw sirrintaw horta wala ada deerahay cadaaladu anaha faan arag ma ka qaado kortaan fogaan arag ma ka qaado korta may waajib un hatta marka xeelada noocyadaasi amal qabsadaan may sameeyeen codsi oo dawladda qiibasha kala un andarsadaan wala nimela sayti dhibaatada sateegin may aan baahanaa in lambaha ka seeda fadniha hatta mararka qaar may dhiyaasay bardaale iyo awdiin iyo deegaanada dhow walaayba oo dhiyan oo dil ama dhibaatooyin kala booliiska gudbiyoos sidii tisba hawada sheenaya bala sheena gobolka la ka dhugunsaday dilkina sidii tisba degmo ma dhugunsadaas dil waleeri bas kiis culus dhamba kiisaska shalay kiisaska culus degmo ma dhugunsadaas anaha hata weejid amal walka dhii maylan naga xadar
xudura la ka dhugunsaday ha gobolka la ka dhugunsaday mase garsoorayaal gobol ay habahayaan xeer ilaalintii harbahaasa meelo la ka dhugunsaday go'aan wal ku deereys adii baa ta aragaas maxkamado mararka qaar bahayano deegaanada kala seedayano go'aanka deerayaan iyada ma hadsanta doctor waxaa jirta dunida waxaa la dhahaa waxaa la yiraahday horumar badan la sameeyay maxkamadaha hadda markii la fiiriyo yani shaqooyin badan ay hayaan laakiin ma muuqdaan oo dadka xilligan uma muuqdaan maadaama haddii maxkamadda waa dhibaatooyin fara badan ay dhalan lahaayeen tusaale haddii aan kuu soo qaato kiiskii law naxariistay gabadhii saygeeda gubay markaad fiiriso ka maxkamad ahaan markaad fiiriso arrintaas maxkamadda waxaa la dhahaa aad bay ugu daaheen soomaalidana sida hore kuugu sheegay waxaa waaye qofkan qof uu dilay meesha maxaa loogu dili waayo qofkan uu xaq u leeyahay inuu sharcigii waddanka u yaalay diinta islaamka ay dhigaysay qofka inuu maro bal hadalhaynta dadka baraha bulshada ay ku wadaan iyo sida kiiska u dhacay maxkamadaha ay u go'aamiyaan bal maxay tahay farqiga u dhexeeya wallaahi kiiskas nankii sharci yaqaan mise maxinada cadaaladda ka dhajara kiiska saytiisa inka faylahay waan anka qurux badanaay lan maaray garsoorka dalka aan maaray sababtoo horta eedaysnaha marka falka jeysidii fakaday waqtiga la geliyo la soo qabtay dawladdii iyo naylaamay amniga may geliyeen in eedaysanihii laha qobada oo deegaanada galmudug email ku mid laha qobada dabcan nankaas qobashadiisu tumi dhor maalmood qaadadaas ilaa haddii eedaysaniga fakad markoonagada dhuumaalaysaday adina koo xeelad badanyinan dhuumaalaysaday oo koo xeelad badanyi saanan faljaysidii gacanta dambe kala jara si adag qobata adagda eedaysanigaas laamo amniga waqti geliyan ha qobadeen meelus laha qobadi emailus laha wado falka ku dhii waqti ka dhaxay in uu dayuro lan helo horta markan koreeyay saada ku warqabta deegaanada may baa minis gudubaayan badan may danta dadka qasabtay in dayuro laha saara xamar la sheen xamar marka la sheen falka baaris aan baahanye laamo amniga ma aan baahanye waqti ka filan ilaan cadaalada la deerahay fiirina kun dilajaysadii ma dilkaas in la ka caday usuun dil la ka xukumo la faday horta naftiisa sahel naftirkiis ba in la qanayo usuun in la qaniyo usiheladiis la qaniyo oo dambigaas in uu sameeyay ogi laakiin eedaysana kasto faljaysada inkiraada sameeya inay si u badbaado si u badbaado inkiraada sameeya hatana xeerkii dalkana may dhakaya eedaysanaha in uu lan qobada kor qareen in uu qareen lan qobada kor xaquuq aan leeyahay uu naftirshay dadka midda kaliya dooda ay ka taagan tahay tahay ninkan qof uu dilay hebel uu dilay waa la yaqaan maxay maxkamadda ama dawladda qaran ay ugu samaysaa dhibka horta meeshu ka taagan yahay waayo waxa keena kara qofka inuu sharcigi u fahansanayn shak horta batatan eedaysana qareen laan ma xukumo kor eedaysana qareen laan ma xukumo kor maylan ka xukumo korne eedaysanaha ma ha horjeeda xeer ilaali olle naan ku eedaysnu fal ku jeedan bugun u si galay maxkamadda may ku codsanayaan in dilka xukunta awood sharciyeed macnaha ma fahansin eedaysanaha isdifaaca kora laakiin ma imbaahanyan nan maxinadii shaqadii ka sow xeerkii dalka ka sow oo difaaca kora oo xagshay handhici kora mayb waa dawladda xeerarka dalka ka qoranyi eedaysana kiisay noocan ka fududata haddii us eeyiin qareen laantiis ma socdo kora dadka dareema kora mayb waa nanka walaa yusuf cilmisho leeyi in uu dad wal ku weydiyo sababtoo eedaysanaha ma xaqin leeyahay falajaysadii sax muwaadin uu xaq leeyahay laakiin eedaysanimada ma ku biyaasa muwaadinimadiisu xaq walaa yusuf lahaay ma ka dhumo ha dambigu galay macnaha muwaadinimadiisu walaa yusuf xaq lahaay ma ku waayo for example habsigu hataa bay dhawo dad diljaysadeen kiiran dad diljaysadii ya kiiran nankaas ma xaqin leeyahay inuu caafimaad hela in us cunto hela in us daawo ka filan hela in us hela mayb waa baahidiisa gaarka nolol macnaha nololiiska filan in us hela xafiiska xeer ilaalinta may sameeyay isbuuc kasta xabsiga kormeere isbuuc kasta laamo booliiska dhonga dhamaray saldhigidii oo maray walaa muddo dhaaf ee kirin wala kala dhonga fiiriya ma aan fiiri macnaha eedaysaniga naftirshay hak shay dhungnayo macnaha dawladda markii sameeytay aragahay xeer ilaaliye sameeytay qareenna wal sameeyay isuuna laba qof isku hiringu sababtoo ah kiisku haddii xeer ilaaliye kuma qanyi iqaabeeyay dhigun sidoo kor adag damay dhigun sidoo kor
markuu may waajib ah haddii har ilaali la hela in qareennan kun difaaca u la hela kiiskaad hata sheegaas amal oo eedaysanihii oo xamar wadaadiska gubaaya eedaysanaysid calay maxkamado mee sidii inka macquulsanaay yaa an dhugunsadeen sidii inka macquulsanaayna go-aanka ku deereen sababtoo eedaysanahaas waqti yar ya qaadaday aan aqliga kiikay macnaha sababtoo waqtigu sulashaani iyo waqtiga dhatiyo lama bilood dhatiyo hayti sadhan balayo iyo nay saddex ada lama bilood dhatiyo hayti lama bilood dhatiyo markaan ka lahaa nankaas dilukiisay ulusi diyaar garow badan yan aan baahanye okay marka ada dhugunsanto ku dib hatan garsoorkii naftirshay ma aan baahanya kiisaska dilka isdilaan la ka galay ma isdilaan la ka galay guddiya la kiisaska marka dilka in guddiya la ka galay kiisaska kale normal ka ana shakhsiga go'aan shay leh garsooraha hal heer ilaali iyo hal qareen iyo eedaysanaha iyo dhibanaha fududii kan marka dil aysa garsooray ka galayaan sidii garsoora marka kiiskaas dhamaad ku dib tashiya galayaan waxa tashiga wala leey galayaan oo leey warnan kun dilkun wala heer ilaalinta sheentay walka ganaca kore nan kun dilkun u sameeyay sax eeyaa sababtoo may dhiiday tadaraadi kiisaskii musugaad aragaasay xamar ku dhiyay qabaal in badan eedaysanyaal heer ilaalinta eedayti yalla dhii cadaalada ku mid ah markuu cadaalada ya ku mid ah sababtoo eedaysan shalay musuga la ka oogi heer ilaalinta iyo nay baariyaalkii hadii walka filim been shaano waayeen in uu sirinaad muwadan ka xaqman leh in xur la ka dhiki okay maxkamadii shalay tinan kaasayti oo kiisaskaasay musuqahaayeen xurnankii eedaysanyaalkii ku mid ah ka dhibdi ya eedaysanuuna dilka xukuntay eedaysanuuna nagna xaq shay helay nagna xaq shay kale la helay macnaha fiirin ilaahay isu usulay binankii wal dila hay diloy wal dhaafsiin may ka sameeyay marka cadaaladu awarta aad bay cadaalada aanteeda wax soo gali kara bal maxad is leedahay maanta hadii baxda garsoorka lagu soo kordhin lahaa dalka guulo fara badan oo gaari lahaa wayna ka dhameeyeen hadda adiga as leedahay fikir talay tusaale bal maxay tahay wallahi sarjida eedan ma hasanta horta garsoorka حتى وحياشي كل دوين اسمين دولة قبلات وكونفر قلبات مدحوين عبد العزيز حسن محمد لفت قرين ما يسمى درجة هذا ورق أبتم قرصور كي دولة قبلات كونفر قلبات قبلات يسوق الشقة قاركم متى أو إن شاء هذا قبل كشبيلة هوس ولا شالدري صادق ورق أبتم ما يلين شالدري ولا شالدري ما يكون متى in garsoor tayo leh la sheena oo cadaalad sameeyo kor marka garsoorkaas la shaldaray may la hadajiyay imtixaan mayna la eray hatana nanka imbaha si garsoorka kala tayo loo helo ha codsadeen in ka ma aqoonsanaaytay nowal qaadaday dawlad goboleedka koonfur galbeed marka qiibasho kala gobolka baay marka la hayra saad ku warqabta November 10 wal shaldari isuun wal shaldari meel lama ada hayti shabeelada hoose ku horeeyay madaxweynaha ma in sameeyahay in isbedel la helo bulshadana la qanaciyo waajibkiisa ugu ha in bulshadii hela garsoor caadil ah oo walaa uu baahanyi oo xaq bus an lahay uu bulshadaas dhatiye oo ku helo kor dambeeyay dad soddon sano guriyaasho la ka haysaday ya may wareejiyana garsoorka koonfur galbeed bay dhaweenka dambeeyay daraadii muddo hata ku rooga 20 maalmood malaye in aad hayti in wari kala haay guri fulintiis la sameeyay oo lagu wareejin xaruntan oo booliska ha guri la wareeji onankii la hayna la ka wareeji 20 dhowr maalmood hata ku hor haytay gudoomiyaha maxkamadda Racfaankan wareeji dadkaas ay gurisho burburkii walaa in danku dambeeyay 30 sano gacantii ma ka jaran laakiin markii oo in sheegada dawladda koonfur galbeed iyo xoogaysatay lugaashay ka suruntii hadda aboodeen walaashona may heleen si xaq in la hayaan heleen may baan kuma hadnagaan horta madaxweynaha kuma hadnagaan mar walba oo una lana ma hadsanta sababtoo deegaanadu koonfur galbeed wala taabado qora ku qabaday baxadun garsoorka marka leer may buu eedan ku warqaba kor joogdaye marar qaar may dhiyaasay kiis haddii si qaldan lang maamulon
in la sarkiiska qaabkaadan wada qaldanya sababtoo ah dawladdu si inka saray geek walaay inta ka qaldamona maalinta aakhira usilan hay osaade gudidahay waajibkiisu lahaayna sababtoo mar walba kormeere garsoorka صح سي على سجى ورهاي ha kormeere mail baleeya in sheege walaayun geek adilkiin dhiibi maalinta aakhira adilkii la xisaabtamay maalinta aakhira adilkii kala xisaabtamay ani wakiilni in ku ata umutun cadaalad fala waa waxyaabaha geek aan ero kora garsoorka koonfur galbeed markii hor iyo hata marka la fiiri isbedel badan ku dhigay waayo wasaaradda cadaaladda hata mar walba kor joogtay xafiisyada garsoorka shaqooyinkii waxa lagu sameeyay ha isbedel badan lagu sameeyay nanka hadii uu geek culays ko qaba wasaaradda cadaaladda aan furunta gale mayleena dhibkaasa qab wasaaradda ha irida badan aan furin madaxweynaha may sameeyay markuu may sameeyay qofka hadii uu dhib qaba in uu abashadiis garsoorka hoob uu abasho ku qaba in meeli oo madaxdii uu ku sareeyta ka cabada kor oo unseedo kor oo ero kor dhibku wala yahay waxyaabaha geek uu obaday oo isbedelka sameeyay yaa ku midata dareema korta xafiisadun marka una halkan nin dhiibi dawladdu gobolka koonfur galbeed may geliday dhaqaale fara badan oo qalbayd hata xafiiskeeda hata saadaasi amar ma sha Allah aad u qalbaysan ha markuu may waa walwalba dawladnimada yaa ka kooyayaan iyada ma hadsanta ma santahay bal madaxweynaha inta badan wuxuu fursad fiican siiyay dhalinyarada oo markii hore dhihi jiray tahriib inay aadaan dhibaatooyin fara badan dalka shaqo malaan hadda maanta xafiis walba markaa tagtid dhalinyaro fara badan ku arkay rag iyo dumar isugu jira bal fursadaas madaxweynaha dhalinyarada uu siiyay ma yihiin dhalinyarada naftirkooda kuwa jaaniska la siiyey oo ka faa'iideysta iyada ma hadsanta horta madaxweyne cabdicasiis may aaminsanaana boqolkii 9 us dhalinyarada us anxiilay markuu maamulka dawlad goboleedka koonfur galbeed usul wareegi sababtoo ay markaana ka lahaa anxiilay shaqooyinka wala dhajiye shaqooyinka wala dhajiye for example hada garsoorku markii la dhajiyay ma ku qeyb galay boqolaal qof making hin maalin ee hada garsoorkii horena la dhagantii in kooyti dadka arag haytu wijaal usub iyo dhan dhalinyaro oo fresh ah waa yoo dhan usub hatlay jaamacadooyin dhamaayeen dhalinyaradan in xaq la sii may infaylata firi deegaanadun koonfur galbeed waqti badan haroogni anaha may kumid tahay waqti may jartay dhalinyarada jaanisan helaan anina jaanisan helaan adina jaanisan helaan walaa un habarni nini dhagu hayaan walaa un habarni nini dhagu hayaan fursadina meela taal laakiin nan ehel inan hayna in gacanta la geliya dhigi jartay laakiin hata madaxweyne cabdicasiis may sameeyay maxinad kastananka in kama aqoonsanaay yalan qaadaday oo walaashana habaraday hadii baad shariicaha barati adeerow shahaadada ood ana shahaadada waxaad baratay haysto in aad hayto shahaadada saxanta horta jaamacadda ka dhamaaytay saxanta naftar sheeba ha wasaaradda hata mudada in dambeeytay may sameeytay markuu imtixaanka galaane shahaado kasta nan kasto dirsaday may la xiriirtay jaamacad kasta oo shahaadadaas ay lahayd war roolna markaas shahaadadaas qoran sidan ku ay ma dhamaayay jaamacadda dhamaayay sanad si dhamaay ha silan xaqiiqsada macnaha shakhsiyun ee walaan baraday horta macnaha madaxweyne cabdicasiis samay dhalinyarada fiiri dhalinyaro hadii uu sata geekan ku wal barada inta ka baaga munday waqt kasta qalbishay ka dhiya wal kasta qofka markuu naftiisa jaanis u helo wuxuu u qalmin isku sameeyay naftiisa ha naftir shay wala inaan qalangna oo bulshadana inaan qalangna yalla kooye laakiin madaxweyne cabdicasiis geek may sameeyay hadda marka aad fiirido wasaarado dadaae hadii in badatan aan koola ka aragay masalaami la ka aragay oo yoona ka kooyeen ilmisho iyo nay ha maanta anaga dhalaxan aan kaaga reebayno hadaan baad warbaahinta dawladda koonfur galbeed taliyo tusaalo si dadka kale ay ugu waana qaataan wax badan ay ugu fahmaan bal maanta maxay tahay wallahi sirjita geeka talada nabiyo mayna gadaa samay beeray iyo horta ilaahay markuu koray torta nasi amni iyo nay mayba amni una ka degna mid kala hadii una marxaladda una hatta ka sii socon una ka sii socon maamuluun hortaan haayno hatta una ku faylana jaran maamulo hortaan haayno una ku faylana ya jaran
waqti lama kun tumisiyeed marka la ku bilaabo ilaa hata maamulo ma jiraan haddii maxkamado leera ku dhisma faylana haddii xeerarka dhisna la fiiri ku dhisma faylana haddii la fiiri sheegada shaqadii la fiiri iyo qaabkii la fiiriyoona unu ku quality faylana jiraan may laha xoojiyo dowladnimadana mar walba haan xiliyoy dhalinyaradana dowladnimada mar walba doorkiyo leeyin ku qaadadeen dabcan dareemo kortagee ka magaalada Baydhabo marka leer wal qobad yala sameeyay marka leer dhalinyarada migil iblaan leh adii diyaarsan ya inuu sameeyay diyaarsan may balana dhalinyarada ilaahay guuleeyo dawladda koonfur galbeedna may ku codsadaan dhalinyarada in waqtiyaal fara badan iyo siyo may bookan ku wanaagsan siyo yoona wal qabad shog si saaraan oo bulshadana wal badan han ku sii saaraan may buwaadina may kiin ku mahadnagay fursadda fayla adana sidii telefishinka dawladda goboleedka koonfur galbeedna may balana mahadsanta waayo may buwaa muraayada dawladda goboleedka koonfur galbeedo sababtoo geeka salaadada hakati muddi balan noo qabsatay in adana ila kulunta na aragda ad an gudbida bulshada ad oo si gaar ina dana gaar inanka sameeyana nagna dana gaar adan ku lahayna may gudbiyahayte waxa qabadkii bulshada xaqiyo aan lahayn in gudbi in umutadatiye cadaalad jarta haddii dhib la deersiyona yo aan abada koran adina may ko laha mahadsanta ilaahayna ku ajarsi shukran jazakallah daawadayaal waxaan intaasi aan ku soo afeerinaa barnaamijkii toddobaadka ee warbaahinta dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya toddobaadkan oo marti noogu ahaa xiriiryaha gobolka Baytaar oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Baydhabo isla markaana ah shakhsi magaalada ku dhashay waxaan ku bartay wax badan oo ku soo kordhiyay dhinaca garsoorka markii la fiiriyo taro aad iyo aad maasan tahay waan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga aad siisay waxaan rajaynayaa tan iyo barnaamijkan la mid ah inaan marar badan aan sii samayn doono hadduu Allah ugu dilay laga helo هذا ما حصلته إذا ما حصلته